السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maxaa waqtiga lumiyaa maalintii waxaad ku mashquulsataa howlaan loo baahnayn waxaadna jeclaan lahayd in waqtigaasi dib u hesho waa falka ugu xun ee aan dhammaanteen ku kacano waa ina ficnaan lahayd nagula ciqaabo si ayna mar kale u samayn. maanta muuqaalkeena waxaynu kula fuguri doonaa waxyaabaha waqtiga lumiyaa. halkani waa kanaalka iftiinka, magacayguna waa diin xuseen shacab. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta saaxiibayaal. inkastoo ay jiraan arrimo badan aad u aragto inay waqtiga lumiyaan, balse waxaa cudurdar ka badan oo aan la soo koobi karin waxyaalo badan oo lumiya waqtiga, kuwaasoo aad har iyo habeen ku jirto una haysato wax faa'iido iyo nacfi ku leh, laakiin aad ku soo baraarugi doonto goor aan xeer iyo faldhaal kala dhacayn oo waqtigii kaa dayacmay, cimrigaadiina weynaaday oo aadan awoodi karin inaad wax ka beddesho inaad calaacasho un mooye. xariif ayaad ku tahay waqti lumiska, haddana waad ismoogan tahay waxaad isku haysataa qof waqtigiisa si fiican ugu bixiyo howlihiisa. waxyaalaha waqtiga lumiya waxaa ka mid ah: 1. Facebook. ma isticmaasha aaladda Facebook la yidhaahdo? hadday jawaabtaadu haa noqoto, aalado badan oo la adeegsado ayaa jira, balse tani waa mid ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan dhanka ardayda iyo dadka kale. waa bar uu maanta ciwaan ku leeyahay qof waliba oo haysta taleefanka touch screen, balse aysan xisaabta qofna ugu jirin inay khatar iyo dhibaato ka soo wajihi karto, dhinac kastana ka saamayn karto, adiguna aad ku faraxsan tahay isticmaalkiisa. oo haddii aad saacad moogato oo ay kula noqonayso inuu joogsaday shidaalkii ay noloshaada ku soconaysay, oo aad ku siganayso inaad badda isku turto. Nambar 2. daawashada telefishinka. dhalinyartu waxay aad u daawadaan telefishinka iyagoo waqti dheer ku qaata oo daawanaya ciyaar iyo filim, kana dhigtay caado aysan goyn karin. inkastoo ay u badan yihiin kuwa kubadda cagta daawada ah oo habeenkii dhafa, sideedaba kubaddu ma laha waqti ay soo gasho, balse waxaa la soo saaraa shaashadda saacado kala duwan, maqribkii, ishaha ilaa 1 habeennimo iyo maalintaasi oo dhan. intaasi way sugayaan xilligii ay soo galayso. waxaan in badan arkay dhalinyarada isku xaafadda nahay eega markii ciyaarta la soo daayo, haddii salaad lagu jiro aan istaagaynin oo dareen dhaqdhaqaaqaya maba leh, waxay ku kala maqan yihiin shaashadda telefishinka. Nambar 3. waxyaalahan dib ku dhiga. sida la isku waafaqay waa tuuga ugu weyn ee waqtiga naga xada. dadku waxay jecel yihiin inay iska jiitamaan oo ay cudurdaar u raadiyaan shaqo ay maanta qaban lahaayeen si ay waqti kale ugu riixaan. isaga oo kale inuu maanta shaqada fuliyo ayuu dib u dhigayaa si uu mar kale u qabto. marka aad shaqo qabanaysana qasab waa inaad xaajisto, balse waajib maaha inaad waqti kale u beddesho. markaad buugga soo qabsato oo aad fadhiisato miiska wax akhriska, 10 daqiiqo kadib intaad hamaamsato ay nafta kuu sheegaysaa iska daa hadda, saacad kadib ayaad akhrinaysaa ama caawa ayaad akhrinaysaa, adiguna waad ka aqbali ilaan waa sida rabtee. laakiin arrinkaa waxaad kaga badbaadi kartaa qaacidadan 10 daqiiqo. bal waa maxay qaacidada 10 daqiiqo? aan kula wadaagi. qaacidada 10 daqiiqo waxay leedahay: shaqada markii aad bilowdo 10 daqiiqo kadib naso, naftaada u raaxee oo madadaali. haddii kale hawsha min bilow ilaa dhammaad haddii aad isku xidhiidhisana waxaa ku haleeli karaa madax xanuun, maskaxdaaduna way isku mashquuli oo gebi ahaantaadu waxaa noqonaysaa qof kala daadsan. dhinaca kale, kolka aad qaacidada isticmaasho waxaad shaqada dhammayn adigoo firfircoon oo shaqo kala qaban kara. haddana waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. maanta muuqaalkeena halka ayuu ka egyahay. intaan ku kulmi doono tani muuqaalkan xiga. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.